munaasabad ballaaran oo lagu shaacinayay masharaxnimada Maayar Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Saljarko oo mar kale isku soo taagay xilka maayarnimada ee golaha deegaanka Hargeysa iyo sidoo kale masharax Cali Xawaale Madar oo isna u taagan xildhibaanada baarlamaanka oo labaduba iska sharaxay xisbiga kulmiye ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaa munaasabadan oo ka qabsantay xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye ka soo qayb galay madaxda ugu sareysa xisbigaasi siyaasiyiin aqoon-yahan madax dhaqameed haween iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay madax dhaqameedkii aqoon-yahankii siyaasiyiintii ka soo qayb gashay munaasabadan waxaana sheegay in labada musharax ay soo xuleen isla markaana ay codka la garab taagan yihiin xisbigu uma baahna inaan u sharaxno waa niman la garanayo mid waa meeyarada waa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid sidaan horeba u yidhi ka kalena waxa weeye Cali Xawaale Xaaji Madar daxafadan baaba la yiraahdo Hargeysa sidaasaan ku galbinaynaa labadan nin ee magacyadooda la idin sheegay xisbigana waxaan leenahay sharafii haday jirto ragii ugu sharaf badnaa Hargeysaan oo idin keenay maanta naga gudooma ninka aanu imika halkan u taaganahayna waa ninka xilka meeyarnimada haya hawshu waa meer Soomaaliba nin baa haye anagu maanta waxaanu gacan siinaynaa ninka meeyarka ah iyo ninka xildhibaanka baarlamaanka u taagan anagu waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa xisbiga kulmiye madaxweynaha naga aqbalay maanta labada murashax waa Cali Xawaale Madar iyo Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid oo maayarka imika jooga ah oo nu rajaynayno inuu maayarnimada ku soo noqdo insha Allah xisbigana waxaanu leenahay xisbigow annagoo kulmiye ah oo ilaa asaaskiisa ilaa imika ah waxaan doonaynaa ayadoo aan labada xildhibaan midnaba waxba lagala xali doonin inuu xisbiguna ugu shaqeeyo sida ugu fiican oo uu noqdo nimankaasi oo xisbiga ku suntan inay noqdaan niman aan loo kala hadhin anigoo matalaya degmada Maxamuud Haybiye maxay nooga dhalinyarteeda waxaan soo dhaweynaynaa musharaxnimada Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Saljarko oo wax badan ka qabtay caasimadda Hargeysa mar kalena ay u baahan tahay caasimadu aad baan idin salaamayaa waxaanu maanta leenahay mudane gudoomiye Axmed Cabdi Dheere sida uu aqbashay mudane gudoomiye labada murashax beeshu ay wado maanta anaguna inaynu garab istaagno taageer ahaan iyo dhinac walba waxa looga baahan yahay xisbiga kulmiye loogama baahnaa waxa looga baahan yahay cidii looga baahan waa la garanaya ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere oo isna gabagabadii munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in ay aqbaleen labada musharax isla markaana ay garab taagan yihiin inantii halkan ka hadlaysay waxay tiri deegaanka halkan fadhiya cidna loo sheegi maayo waa Hargeysa aasaasyaashii Hargeysa waxaan doonayaa inaan hadalkayga soo koobo deegaanka halkan fadhiya aad iyo aad baa u mahadsan tihiin inaa xisbiga tihiin cidna loo sheegi maayo buddegayaashii xisbiga codkii xisbigu ka helay caasimadda Hargeysa halkaasuu ku qoran yahay waa codku ku guulaystay ee labada madaxweyne soo saaray deegaanna way soo saarayaan baarlamaanna way soo saarayaan annagaa idinka mahadnaqayna inaad doorateen xisbigiinnii oo halkan keenteen waanaanu idinka guddoonnay Xamse Jirde Axmed telefishinka gobonimo Hargeysa.